magacaygu waa siyaasiyiinta cabdi maxamuud waxaan ku dhaqanahay hadda joogaa deegaanka buucane shir jirayd ayaan maanta halka ku qabanayaa shirkaas aan kaga hadlayo nabadayntii heyska beelaha walaalaha oo lasoo gabagabeeyey halkaas oo waxa weeye heshiis taariikhiya ama qodobada lagu heshiiyey markii aan aqrinay warmatiyeedkiisa ama aad iyo aad ugu qanacnay soo dhaweeyey shacabka guud ahaan deegaanada SSC ama shaqaatimo askar iyo caadil door iyo haween dhammaantood aad usoo dhaweynayno nabadan waxa weeye aan taageersanahay dhammaan ogaashayada waxgaradkayada isnimadayada madaxdayada ay waxa weeye mid kasta xaytay sida arrintaasi waxa weeye maqaankeeda looga marweyn lahaa dhanka kale walaalaha waxa weeye dagaalkuna dhex maray oo waxa weeye deegaan ahaan waxa weeye iyaduna hawsha waxa weeye hawl xaal la ka qaatay oo gubasha dhigana iyadana waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa inkasta oo nabadda ka shaqeynayana de waxa weeye nabadda waa muhiim iyadana waydan xaggana waydan dadka dhan ama guud ahaan soomaaliya dhan bay dan tahay il ahaan iyo dal ahaan iyo baris ahaanna waydan waxa weeye wax kastoo dhacana heshiiska iyo isgacanbarinta iyo maxaa laga qaaday macnaha laga wada hadlaa nabadgelyada laga qaata ka yihiin cid dhimatay waxa weeye soo noqonayso oo leeyahay mid kale inaysan ka dhiman oo waxa weeye hawshaas ay dartaa kusii dabarboodo gurubada lagu heshiiyey intay barayihiin dhammaantood oo waxa weeye kow ay ka tahay in nabadu tahay lama taabtaan oo waxa weeye geed gaaban iyo geed dheer roof waa arrintaas waxa weeye in aysan mardan soo noqon garabka labaad oo waxa weeye in naftaa 3 sano lagu bixiyo garabka saddexaad oo waxa weeye in inta hawshaas ay dhammaanayso 3 sano socodku yaraado oo waxa weeye deegaanadaas waxa weeye dadkii maadaama inta la saddex marayaan cidisa socon wixii nabadgelyaha saacada laga wada shaqeeyo anagu asayga iyo guud ahaan shacabka deegaanada kan qaasna dhammaantood guri iyo dibad aniga ku hadlaya shiihaana hadda aan deegaanka ku soo leeyahay ku suganahay ku hadlaya aad baan soo dhaweynaa nabadda waana taageersanahay dhammaan madax sare ilaa madax kasta oo ka shaqeeyay iyo deegaanka joogtada hadda arrinta aad baan u taageersanahay dad kale waxaan kula talinayaa nabadda waxa weeye in laga shaqeeyo oo la taageero oo culimada iyo sinada iyo waxgaradka iyo dadka waxa weeye dirada ama lamaynta intooda la qaato waa lagu faa'iidaa midna kusoo noqon maayo inkastoo tirada de xawaalid ku dhameynaya hadana afashada baa dhameeya dadku waxa weeye soo ahaan jireen guud ahaan sharaftii iyo karaamadii iyo sicilnimadii iyo inay ahaan jirtay haddaba si ka tabeeyay dadka waxa arsi ama siyaadaaraadka ismaaciil sanadka maxaa ku dhacay waxaan taariikh asal labada baash rafaad ka noqotay halka la laga soo taasna ma aha aad waxa weeye isu soo dhawaado oo wanaagii iyo nabadii laga shaqeeyo siyaahada waxa weeye sinaan wanahay cilmiga wanahay ay soo nakan oran laakiin dadka badan ma waxba tii waxa weeye meesha lagu soo shiiyay taas waxa weeye iskoolaaliyo laga yartoodo شخصيان أنا لكن شخصيا أنا أوكي بالطبع هذا سواء نفس ثقافي بقيت يعيش أنا ما آخر السنة قبل ما هي هذا يشوف أنا صح يحتاج يبحث ما يحتاج